في shape ويسيو أما في entry perfect no hesitation straight forward بوتجي وأنا كوا وجعله لكن هذا هلا sida kan oo kale هذا هلا suuq يمي كتجس لكن بلا data أنت وبدن حسب هي حتى riskiga kuma badiyo riskiga حتى هذا ويريا sababtoo ah mar walba wuxuu ka hor iman karaa suuqa waa inaad u fahamtaa uncertainty-ga ama inaan suuqa la hubin oo qof huba aad jirin waa inaad ogaataa you have to know that the moment aad ogaatid qof suuqan huba inuuna jirin oo qof walba stop la soo qaadan karo ama qaatoba wixii waa istajinaysaa bas suuqaaga waxaagaa iska akhrisanaysaa data la soconaysaa tiradhada fiican baa qaadanaysaa kuwa xun waa iska ilaalinaysaa lacagtaada ilaashanaysaa riski macquula gelinaysaa anoo kale hadda ogahay tirarkan inuu ii shaqayn doono maanta waxaan ku geli lahaa akoonkayga oo dhan baa iska gelin lahaa akoonkayga lifeka xataa waan iska gelin lahaa waxaa laga yaabaa inaan la taasi hadda 50 kun oo life kale ku tiragalayo inaan kursiga gelin lahaa 40 kun si aan u sameeyo 80 kun oo dollar waxaa ogahay inuu ii tagay TP-ga laakiin maadaama aanan ogeyn cid ogaan karto oo ku dhaaran karta 100% in aanay jirin suuquna uu yahay meel uncertainty u ka jiro waxaa ku khasbanahay inaan riski macquula geliyo suuqa tusaale inaan geliyo 1% akoonkayga ka mid ah and okay 1% gaas waxaan ku raadinayaa 2.5 3 2% ugu yaraa 2% ku raadinaa ka soo qaad $100 kan hadii 1% gaas 200 ku raadinaya and then taas waxay sahlaysaa mar walba maadaama aan riski gelinayo oo khatar ay jirto in aan helo waxa ugu badan ee xaqiijin kara in shahada la aadayo okay technical waa helay isla waa helay context waa helay taranki kama horiman daily kama horiman 4 hour kama horiman 1 hour ku iga jira SDS kale iga baabiyay interi nooca helay intaas oo waxaan haystaa hadana waxaan u sii baahanahay confluence kale sababtoo ah mar walba wax ogahay oo aan xogo badan haysto oo mar walba aan guuleysanayo si aan u guuleysto aan marka waxa u badan aan helaa soo hadda data haysano waxa u fiican waay datadu waa number 1 suuqan data ka haysa Trump baa soo axwaal soo qoraya shira dhacay inta meel kale inta ka dhacday marka cirku galaya dhulku galaya so data u baahanta حتى ويديسيد AI انت سو فرتيد ChatGPT او كلا AI كلا كو جوجل كلا تيتيد اترهديد بريس ديسكفريغا ama بريس ديليفريغا suuqa maxaa sameeya maxaa lacagtan gold oo kale inuu isagoo jooga tusaale isagoo inta jooga maanta maxaa inta geeyay inta u badan ay ku soo qorayaan supply-ga demand-ka waxa weeye baahida lacagtan loo qabo gold loo qabo iyo sahayda iyo maxay ahayd waa sahay iyo siin miyaheed oo kale adu baahida loo qabo iyo bixinta ko haye maxaa macroeconomic data ku leeyahay waxa ku leeyahay geopolitics siyaasadaha dhaqaale waxa ku leeyahay CPI waxa ku leeyahay kan hadhow waxa soo galaya optionada u dambeeya soo galaya in uu jiro wax loo yaqaano speculation ay sameeyaan dark police-ka iyo institutions-ka iyo bangiyada waaweyn iyo interbanks-ka iyo xeelaha oo ah in ay price-ka saameeyaan kuwa lama ogaan karo marka Citibank ama JP Morgan ama bangi kale inuu lacagtan maanta dhaqaajiyo inta korgeeyo ama inta soo bib hoos geeyo inagu ma ogaan karno sababta bankigu soo u fakarayo ma hayno waxa kale ogaan karnaa datadii maxay ku soo baxday okay we're good for the currency waxaan filaynaa buy ma haya waxaan filaynaa buy marka maadaama factors badan ay suuqa jiraan dhaqaajiya Soomaaliya hadda xoog waxay saarnaa inagu simply ka u dambeeyo ah speculation kaste we never know qaab u shaqeeyaan way jiraan sababtoo ah inaga raacayna wada oo leh kaalkaad soo xirmoos kan haduu halka yimaado kan xagu hadda tago waxaas oo dhan waa historical data ku sawirayay ama ku sameysay weyn isbedelaa xaqiiqatan muddadii marbu price ku isbedelaa dhaqaalaha dhanba isbedelaa maalinta qoraal la sameeyay waxa jiray Federal Reserve kaydka Mareykanka bangiga adduunka u weyn waxaan lacag saameeyo oo dhan Jerome Powell gudoomiyaha uu ka yahay ba usbuucii hore talaadii iyo arbacadii ma hubo khudbad uu jeedinaya waxaan ku arkay isagoo leh 2020kii waxay bedeleen siyaasadda dhaqaalaha bay hor u bedeleen 2011kii bis 8 soo sameeyeen 2011 ay sameeyeen siyaasadda dhaqaalaha and then 2020 coronavirus wax ka bedeleen and then wixii hadda 2025 maadaama dhaqaalihii adduunku isii bedelayo AI ay soo baxday wax badan ay soo bixin wax badan ay update noqdeen waxa u baahanay inaan update gareyno siyaasadda dhaqaalaha marka adiga Soomaaliga ah waa inaad la kortaa waa inaad isla update gareysaa hadii kale laga tagay inuu marka inta qaabilsanahay aynu inta raadinayno waa intaas simple inay dhahno war maxaa adduunka socda maxaa shaqeynaya maxaa loo baahay maxaa macna sameynaya bas candle unu jeed Europe iyo DXY oo dollarka Mareykanka isku bedelaya waa sax waa la isku bedeli karaa adoo Soomaaliya jooga beledweyne jooga muxuu ahaayay Boosaaso jooga beled xawo jooga meel walba aad berbere jooga meeshaas waddankeena Soomaaliyeed ka jooga ayaa ka shaqeyn karta laakiin waxaad u baahan tahay in aad fahantid taranka dhaqaalaha maadaama wuxuu dhaqaaleeyahay
wuxuu iga caawinaya dad waxay leeyihiin ustaadow waxa jirta tareen dhaqaalaha saa u taqaanid ama saa u falanqaysid ama saa u raadisid waxay ku fiican tahay inaad longer term oo kale ah xoogga saartid waa run dhaqaalaha markay sameeyno macroeconomicska ama macroeconomic trendka badanaa wuxuu ku shaqeeyaa inta u badan long termka wixii maalin ka badan saale 2 days 3 days tiradada lahayn 1 week 2 weeks haddaad dib ugu noqoto kale interest rate kale markay dhaan la jaraya waa la jari doonaa meesha loo deyn doonaa sii ognahay data aynu helay darteed waxaa arkaysaa in suuqii uu ka tegay euro dollar oo kale ay ka tagtay from A to B oo kor ay aaday korka aynu saadaalinay bil ka hor ama 2 bilood ka hor ama 2 usbuuc ka hor waa run way jirtaa dhaqaalo inta u badanna wuxuu ku shaqeeyaa longer termka laakiin haddii short termka 1 hour iyo 4 hour ku trade gareynayno qudhoodu longer termka kasoo dhex baxaya haddaa ogahay euro dollar in loo garaacayo usbuucan iyo bishan kor loo garaacayo haddii sel raadin maayo marka waxa ugu yar u tarayo waxa weeye inaan dhaqaalihii iyo waxyaalihii suuqa saameynaya oo guud inaan fahmo waxaa ka mid ah aan dhaho lacagtaan way daadanaysaa baydeeda iska ilaali tusaale hadda DXY oo kale haddaa telegramkeena iyo facebookgeena ay ku noqotay websitekeena waxaa arkaysaa wax badan bay waxaan ka sheekeynay DXY siyaasadda dhaqaale ay ka damacsan yihiin nimankan Mareykanka iyo inay rabaan inay daciifiyaan for the past muxuu ahaa 4 weeks 5 weeks DXY hoos bay u socotay maxaa iska ilaalinaya hadday DXY siiso context fiican iyo meel aan ka qaadan karo trade buy ah oo taa bedelkeeda DXY buy lagama qaato macnaha ka wada buy haddaan DXY ka rabno euro dollar baa selina siinaysa marka euro dollar sel u qaadanaa ama USDJ baa u qaadaneen so haddaan euro dollar kale sel ka soo helo waxaan dhahay okay selkaasi maybe risk iska ilaalinayna sidaasayna noqotay sababtoo ah waa inaa wixii isu baalansi garaysa marka soo dhow ha 15 ka xirmay bullback buu sameynaya okay I think 15 ka ku daawan awal 15 ba moodayba ya 15 ka ku daawano break even goorma keenayna I think I don't know break even korka ma ku qaadan keen kar ugu yaraa hada break even ma dhawa soo dhow استاذ يورن عادي اتستا